magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland oo toddobaadkan looga dabaaldegayo sanad guuradii 20aad ee markii la aasaasay Puntland ayaa waxa ku sugan madax uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo hadda si toos ah ugu jira khadka magaalada Garowe. ra'iisul wasaare aad baad u mahadsan tahay in aad nagala qayb galayso barnaamijka caawa soo dhawow. waa mahadsan tahay Farxaan, aad baad u mahadsan tahay walaal. su'aasha ugu horeysa rabay inaan ku weydiiyo waxa weeye barnaamijkan markii aanu bilaabaynay 15 bilood ka hor waxaad ku sheegtay in aad al-shabaab uga guuleysanayso muddo 2 sano ah. waqti yar baana hadda ku haray. ma la is oran karaa waad ku guuldareysatay? maya markii aan barnaamijka furnay waxaan idin sheegay inaan bilownay shaqooyin ah sidii dib loogu habeyn lahaa ciidamada Soomaaliyeed. waxaan qabanay shaqooyin aad u badan oo ay ka mid tahay in ciidamada dib loo tiriyo, in la register gareeyo, in ciidamada qoritaan lagu sameeyo, in markii ugu horeysay tababar dalka gudahooda looga sameeyo, in askari walba oo aan leenahay uu leeyahay registration cusub, in sharci xaqsiina oo sameynay oo askari meel kale in la qalabeeyo, in xerooyin loo dhiso. marka waxay maraysaa meeshii ugu fiicneed, laakiin ogsoonow waqtiga waddankani wuxuu soo maray waqti dheer shaqo aasaas ah oo saldhig ah ayaan ka bilownay. waxaan rajaynayaa inay si fiican u soo dhamaan doonto. laakiin ra'iisul wasaare ciidanka naftirkiisa soo hadal qaaday waxaad tiri ciidan tayale baanu dhisaynaa, welina taas ma haysaan Soomaa? maya waan bilownay, dafcadihii ugu horeeyeen way soo baxeen, kuwa kana waa la bilaabay inay dhismaan. annaga iyo dowlad goboleedana waa ka wada shaqeynaa qorshe cad oo dheer oo hufan na waan ka leenahay arrinkaas. marka waxaan rajay doonaa haddii Ilaahay yiraahdo in wixii ku meel gaarka ahaan jiray ama xalkii ku meel gaarka ah aan uga bixi doono xal waara oo ah ciidamo hufan oo Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliyeed difaacooda ka shaqeyn doona. ra'iisul wasaare xagee idin maraya qorshihii AMISOM ciidamadan midowga Afrika ay uga baxay lahaayeen Soomaaliya muddaad u qabsatay xitaa iyada qudheeda? waxaan sameynay qorshe la yiraahdo qorshaha kala guurka oo annaga iyo hay'adaha adduunyada caalamku aan ku heshiinay iyo AMISOM laftooda. qorshahaas isaga ah aan ku heshiinay waxaa laga ansixiyay golaha wasiirada, waxaa laga ansixiyay dowlad goboleedyada, waxaa laga ansixiyay midowga Yurub, waxaa ansixiyay hay'adaha dalalka dunida oo nala shaqeeya oo dhan oo ay ku jiraan dowladaha ku deeqay inay dalkan Soomaaliya ciidamo ka joogaan, kaasoo u qorshaysan sidii loo tayeyn lahaa, loo tababari lahaa, loo dhisi lahaa ciidan Soomaaliyeed, ciidamada AMISOMna ay uga bixi lahaayeen mustaqbalka. marka waxa weeyaan qorshe dhammaystiran oo kow ilaa meesha uu ku dhammaan lahaa ah, oo ah goormee laga baxaya, goobtee laga baxaya, meelaha hadda noo qorshaysan oo ugu horeeyana way qorshaysan yihiin, wayna ku qoran yihiin, mar dhowna waad maqli doontaan. mar raba inaan halkan ka sheego. waan gartay. ra'iisul wasaare hadda waxaad ku sugan tahay Garowe, waxaad u joogtaa saan filayo dabaaldega 20 guurada. waxaadna ku tilmaantay daraad markii aad shalay ka degtay Garowe inay tahay hooyadii Puntland federaalka. haddana saasoo tahay dadka Soomaalida waxay og yihiin in tension ama xiisad ay ka dhaxayso oo xitaa aadan gacan ku hayn. ma la isdhihi karaa martibaad ku tahay Garowe? Garowe waxaa lagu soo dhaweeyay si aad u qurux badan. Garowena waa qayb ka mid ah dalka Soomaaliyeed. aniga iyo wafdigaan hogaaminayay waxaa ku soo dhaweeyay kumanaan Soomaaliyeed oo isu soo baxay oo muujinaya dareenka ay u qabaan dowladnimada iyo dad Soomaaliyeed oo rajeynaya in dalkoodu uu noqdo dal la mid ah dalalka dunida ama ka wanaagsan. halkan waxaa ka muuqatay marka shucuur Soomaalinimo, shucuur wadaninimo, shucuur dowlad jacayl. marka halkan anagu marti kuma nihiin, waxaan nimid qayb ka mid ah dalkeena. laakiin goormay ka hirgalayaan? ilaa federaalkii waa in dowladii dhexe hay'adaheedii ay ka howlgalaan. marka wax xafiisyo ah kuma lihidiin, danahooda iska qabsadaan, heshiisyo caalami bay la galaan dowlado kale. marka inaadan shuqul isku lahayn soo ma eka? maya waxaan u malaynayaa inay aad kaaga khaldan tahay. waxaan leenahay xiriir dhow, wada shaqayn dhow. maantay markii aan soo booqday wasaaradihii
waxaan arkay shaqaale ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha oo bixinaya seminaaro kuwo kale oo shirar ku jira waxaa socota shaqooyin la isugu soo dhaweynayo dowlad goboleed dowladda federaalka waxaan leenahay qorshooyin ka soo baxa shirarka uu hogaamiyo madaxweynuhu qorshooyinkaas oo ah kuwa aan ku wada shaqeyno waxaa ka dhexeeya xiriir joogto ah waxaa ka dhexeeya wada shaqeyn joogto ah waxaan jeclaan lahaa marka dadka adigu horeyso oo ka shaqeeya idaacadaha inaadan ku mashquulina inaad raadisaan inay jirto khilaaf iyo xumaan laakiin aad ku mashquulsaan horumarka waddanku uu samaynayo laakiin dadka qaarkood waxay isweydiinayaan tusaale haddaan u soo qaadano in isgarabyaac uu jiro ra-iisul wasaare hadda waxaad joogtay shirarkii ay ka qaybgalayeen madaxdoo kale meel ay 7-5 madaxweyne wada fadhiyaan oo aysan nidaam iyo kala dambeyn jirin ayay u muuqataa mararka qaarkood shacabku saasay u arkaan shacabka Soomaaliyeed oo adigu qayb ka tahay waxaan ku baraarujinayaa dalkeena inuu soo maray waqti aad u dhib badan marxalado aad u adag marxaladahaas in laga gudbo waxay u baahan tahay faham waxay u baahan tahay dulqaad waxay u baahan tahay susamir waxay u baahan tahay inaan aqbalno wixii naga dumay ku dhawaad 30 sano aan sanad iyo laba loo dhisi karin waxay u baahan tahay inaan fahmno inaan jeexno aasaas dhab ah kaasoo nagu ridaya dariiqa saxda ah mustaqbalka aad iyo aad baad u mahadsan tahay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo si toos ah waa Xasan Cali Khayre aad buu mahadsan yahay oo nooga waramayay magaalada Garowe si toos ah barnaamijka marti noogu ah aad baad u mahadsan tahay ra-iisul wasaare